kulanti wanaagsan daawadayaal halkan waa Somali Press TV qodobada ugu waaweyn ee barnaamij wareedkeena aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqon doono xaalad kala qaybsanaan ah oo soo wajahday kooxda Al-Shabaab gaar ahaan hogaamiyaha kooxdaasi Axmed Diiriye iyo garab uu hogaamiyo Mahad Garatay barnaamij wareedkeena ayaan ku faahfaahin doonaa khilaafka soo shacbaxay ee kooxda gudaheeda ka jira qodobada kale ee barnaamij wareedkeena aan ku faahfaahin doono waxa qayb ka noqon doono madaxtooyada oo bilowday inay hoos u dhigto awoodda la taliyaasha xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaa ka jira in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu wax ka og yahay dadaaladaasi ay wado filla Soomaaliya barnaamij wareedkeena ayaan ku eegi doonaa ciidamada qarankana muddo 2 toddobaad kadib waxay u suura gashay inay gudaha u galaan deegaanka Masaajid Cali Guduud shabaabkii ugu badnaa ayaa lagu xasuuqay deegaankaasi duqeymo ayaa la dhacayaa hadda barnaamij wareedkeena ayaan ku faahfaahin doonaa qodobada kale waxa qayb ka noqon doono maxkamadda ciidamada ayaa fulinaysa toddobaadkani gudihiisa xukunadii ugu badnaa oo kooxda Al-Shabaab ay wajahdo barnaamij wareedkeena ayaan ku eegi doonaa qodobadaas iyo sidoo kale qodobo kale oo xiiso leh balse haddii tahay markii kugu horeysay yaa soo booqatay channelkeena waxaan ka codsanayaa in aad rukumato si ay ku soo gaaraan wararka warbixinada iyo macluumaadka xiisaha leh ee halkan aan soo gelino mahadsanidin dhammaantiin barnaamij wareedkeena aan ku bilaabo xaalad kala qaybsanaana ayaa soo wajahday ururweynaha kooxda Al-Shabaab gaar ahaan hogaamiyaha kooxdaasi Axmed Diiriye Cali Abu Cubayda iyo sidoo kale garab uu hogaamiyo Mahad Garatay madaxa amniyaadka oo ah hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka ururka Al-Shabaab xog la helay ayaa tilmaamaysa in Mahad Garatay marba marka ka dambaysa uu xoojinayo hamigiisa ah inuu qabto kursiga ugu sareeya ee hoggaanka kooxda waxayna arintaasi si weyn u soo shacbaxday kadib markii kooxda Al-Shabaab ay ku fashilantay duulaankeeda bariga Itoobiya bishii Julaayo ee sanadkani halkaas oo Al-Shabaab looga dilay boqolaal dagaalyahano warbixinta ayaa sidoo kale muujinaysa in weerarkaasi kadib ay soo shacbaxday daciifnimada awoodda kooxda taa oo ka dhigan inay u muuqato inay u baahan tahay isbeddel dhinaca hoggaanka ah iyadoona xaaladda caafimaad ee hogaamiyaha kooxdaasi Axmed Diiriye Abu Cubayda ay aad u xumaanayso waxaana sare u kacday fursadaha uu Garatay u leeyahay inuu qabto hoggaanka kooxda gaar ahaan wixii ka dambeeyay dilkii Cabdullaahi Naadir ee horaantii bishani Oktoobar lagu dilay duqeymo dhinaca cirka oo ay fuliyeen ciidamada Mareykanka Mahad Garatay ayaa ka mid ah ragga ugu cadcad in uu la wareego xilka maadaama hogaamiyaha kooxdaasi Axmed Diiriye Abu Cubayda uu yahay dhulyaal warbixin dhawaan ay soo saartay qaramada midoobay ayaa sidoo kale waxay daaha uga qaaday in uu jiro loolan iyo isqabqabsi gudaha kooxda waxaana warbixin ay qaramada midoobay ay daabacday lagu sheegay in miisaaniyadda sanadkani kooxda ay ku dhowdahay $100 milyan taa oo inta badan lagu bixiyo si qasab ah waxaana qiyaastii rubac ka mid ah lacagtaasi loo qoondeeyaa in ay kooxda ay ku soo iibsato hub casri ah waxaa la ogaaday in Mahad Garatay uu dhaqmo qaab lagu tilmaamo inuu ka madax banaan yahay hoggaanka kooxda waxaana taasi ay sababtay in laga xayuubiyo xilal kala duwan uu hore uga hayay kooxda balse wuxuu awood ku dhex leeyahay kooxda oo cadeynaysa in saameyntiisa gudaha kooxda aad looga dareemay wuxuuna aad ugu dhow yahay inuu qabto jagada kooxda maadaama uu hogaamiyo garabka Al-Shabaab u qaabilsan sirdoonka iyo amniga iyo sidoo kale maaliyadda waa loolan iyo isqabqabsi cusub oo hadda ka dhex urtay hoggaanka kooxda iyadoona ay sababi karto kala tag iyo shaki kooxda maadaama ay wajahayso dagaallo iyo sidoo kale furumo dhaqaale oo ay kooxdu ayna wajihin tan iyo soo ifbixidii kooxdaasi ee ka mid ah laamaha ugu weyn ee ururweynaha Al-Qaacida qodobareedka kale ee barnaamij wareedkeena ku jira haddii aan sii faahfaahinno madaxtooyada Soomaaliya ayaa bilowday in hoos ay u dhigto awoodda la taliyaasha xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyadoona arintaasi la sheegay in wax badan uu ka og yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ayaa wado qorshe uu ku doonayo
in lagu yareeyo awoodda la taliyaasha xafiiska ra'iisul wasaaraha iyaga oo saluugsan in Xamse uu la taliyaal ka dhigtay dad quburra oo hore ula soo shaqeeyay dowladdii hore ee madaxweyne Farmaajo kuwa oo aan cilaaqaad toos ah la lahayn filla Soomaaliya sida xogaha ay sheegayaan kooxda madaxtooyada ayaa doonaysa in ayaga ay hoos tagaan la taliyaasha ra'iisul wasaaraha si aan saameyn dhow iyo mid fog ayna ugu yeelan talooyinka siyaasadeed ee ra'iisul wasaaraha ay siinayaan maadaama cilaaqaad gudaha iyo dibadda ay haystaan durbo qorshaha hoos u dhigidda awoodaha waxa uu ku bilowday la taliyaha dhinaca amniga Kamaal Guutaale oo la sheegay inuu hoos tagayo la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Xuseen Macalin lama oga in madaxweynaha uu wax ka og yahay hindisahani qorshaha laakiin waxa la rumaysan yahay hoos u dhigid bilaawa galaangal oo ay wasiir dowlayaasha madaxtooyada sida Abshir Buqaari iyo la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha iyo sidoo kale la taliye sare Awees Xaaji oo saaxiib dhow ay yihiin madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay ku yeelanayaan xafiiska ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ujeedka ugu weyn ee loo beegsanayo la taliyaasha ayaa ah maadaama ay dowladdii hore la soo shaqeeyeen waxaana laga cabsi qabaa in talooyinkooda ay leexiyaan siyaasadda ra'iisul wasaaraha mustaqbalka dhow ayna saameyso wada shaqeynta ka dhaxaysa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha si gaar ah waxaa shaki weyn laga qabaa la taliyaha arrimaha siyaasadda ee ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre Axmed Nuur Ulix oo hore uga tirsanaa kooxdii ololaha ee ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre sidoo kalena soo noqday xogaayihii joogtada ee xafiiska Kheyre iyadoona kooxda madaxweynaha ay ninkaani u arkaan in uu yahay shakhsi galaangal badan oo ra'iisul wasaaraha go'aanadiisa wax ka ogaan kara halka ayagu ay doonayaan in awooddaasi ay qaataan qodobareedka kale ee barnaamij wareedkeena ku jira haddii aan sii faahfaahinno ciidamada qaranka ayaa maanta waxay u suura gashay in muddo dheer kadib ay si buuxa ula wareegaan gacan ku haynta deegaanka Masaajid Cali Guduud oo labadii toddobaad ee u dambeeyay ay isku hayeen dowladda iyo sidoo kale kooxda Al-Shabaab warar ayaa sheegaya in ciidanka kumaandooska Danab iyo kuwa Gorgor ee xoogga dalka ay maanta gudaha u galeen deegaankaasi kadib markii xalay ay isaga baxeen kooxda Al-Shabaab oo dagaalyahanadii ugu sugnaa halkaasi ay isaga carareen ila dadka deegaanka ayaa inoo sheegay in ciidamadu ay markii hore madaafiicyo ay la dhaceen deegaanka gaar ahaan aagag ay ku sugnaayeen Al-Shabaab taa oo keentay in duqeynta kadib ciidamada dowladda dagaal foolkafool ah ay gudaha deegaanka ay ku galaan saraakiil ka tirsan militariga oo ku sugan deegaanka Masaajid Cali Guduud ayaa sheegay inay wadaan howlgallo miina baarisa maadaama Al-Shabaab qaraxyo ay ku aaseen deegaanka Masaajid Cali Guduud gudihiisa iyo banaanka waxa yaala meedadkii ugu badnaa oo dagaalamayaasha kooxda Al-Shabaab maadaama duqeymaha iyo madaafiicda ay inta badan dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen Al-Shabaab dagaalyahanadooda duqeymaha diyaaradaha dalka Turkiga ayaa hadda ku socda deegaanka iyadoona ciidamada dowladda ay u suura gashay in si buuxda ula wareegeen gabi ahaanba gacan ku haynta deegaankaasi guud ahaanna saaxiibayaal waxaan halkan ku soo gabagabeynayaa barnaamij wareedkeenna aad kala socoteen Somali Bares TV taa barnaamijkan kiisi xiga aan ku kulmi doono dhammaantiin nabadgelyo saaxiibayaal